xiisada Iiraan ayaa gobolka bariga dhexe ka dhalisay loolan dib u soo celiyay kala jabka Carabta iyo Turkida. Warbaahinta Mareykanka ayaa baahisay Sacuudigu inuu kula taliyay Mareykanka in laga dhabeeyo hanjabaada Trump ee weerar lagu qaado Iiraan. Warbixinada markii ay soo baxeen wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa baahiyay sawir uu gacmaha haysto madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan, isagoo Turkiga ku tilmaamay walaal bixinaya dadaal lagu xasilinayo gobolka. Waxaa xigtay wakaaladda wararka AFP oo baahisay sarkaal ka tirsan dowladda Sacuudigu inuu u sheegay Turkigu inuusan qayb ka noqon doonin heshiiska difaaca wadajirka ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Pakistan. Trump ayaa soo baxay oo sheegay in wadahadallo sax ah oo la xiriirta arrinta Iiraan ay socdaan, taa oo ka duwan hanjabaadihii uu dirayay maalmihii u dambeeyay dowladda Iiraan. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in 24 saac u dambeysay isbedel uu ku yimid Trump inuu muuqato suuragalnimo in wadaxaajood lagu xaliyo arrinta Iiraan. Isla warbixinadan waxaa lagu sheegay in dowladda Turkiga iyo Qatar ay u muuqdaan kuwo guuleystay oo lagu hakiyay suuragalnimo weerar lagu qaado Iiraan. Tani waxay kala socday Sacuudiga iyo xulafadiisa oo ku talinaya in laga hortago nidaamka Iiraan inuu awood yeesho, halka Turkiga iyo Qatarna ay isku dayayaan wadaxaajood in lagu xaliyo xaaladda bariga dhexe.